صورك هاي كبرنا تحشده ميكروفون في أسرع صدقني maadaama ay tahay laba gobol oo isku talaabaya maadaama ay laba degmo oo runtii xiriir ka dhaxeeyo labada dawlad hoose bay runtii si miisaan leh uga wada qayb qaataan taasina ay noqotay dawladda hoose kaliya ay ku kaliya noqotay dawladda hoose Burco meesha ka baxday aad iyo aad baa mahadsantiin mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweynayaa magaalada madaxda gobolka Daadmireed degmada Oodweyne aad iyo aad baa mahadsantahay ku soo dhaw barsan bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka madaxtooyada iyo waftiga ballaaran ee hogaaminaya ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xildhibaanada iyo odayaasha gobolka waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolka Daadmireed caasimadiisa Oodweyne oo aad maanta safar ku timid runtii farxad bay noo tahay in dadaalka badan ee aad u soo gashay inaad maanta wax ka qabashada wadada gobolka aad ugu timaadid safarkan taas oo runtii anaguna aanu muddada dheer aanu dadaalkeeda ku jirnay oo aanu dhinacayaga aanu isku daynay in aanu ka qayb qaadano si xoogan sidii wadadaas dhamaystirkeeda oo bulshada gobolka ay uga qayb qaadan lahayd taas oo aanu contribution aanu bilow ah oo aan iminka ilaa 12 tuulo meelahaas aanu ka soo ururinay waa dhowr iyo 50 tuulo gobolkani inta aanu jiyaalku naga soo gelin waxaan rajaynaynaa inaanu qaybaha kale aanu ay iska soo daba dhacaan insha Allah oo aanu har iyo habeen sanad walba in aanu u soo jeedno sidii wadadaas aanu uga qayb qaadan lahayn horumarka ballaaran ee ay dawladda Soomaaliland ka wado wadooyinka aanu dhinacayagana aanu uga muujin lahayn sida ay nooga go'an tahay in aanu horumarkaas dawladdu ay wado aanu qaybteeda ka qaadano runtii maanta waanu haynaa waxoogaa bilow ah laakiin campaign-kii weli waan ku jirnaa uu socdaa hawshu way socotaa dhanka iyaga waanu ka wadi doonaa insha Allah inaanu gacan weyn aanu ku darsanno wadada waxaan noo sharafa inaanu ku soo beegano iyadoo ay dawladdu maanta ay si xawliya ay u wado horumarka dhammaan gobolada Soomaaliland wadooyinka ka socda taas oo ay ugu dheertahay taceerigaabo bulshadeeda waan u mahad celinayaa sida wanaagsan ay ugu kaceen dadkiina mar allaay markii ay reer ceerigaabo wadadoodii u kaceen ayaa la yiri wadadii wada xagaa qabatay marka annagana waxaan halkan maanta wasiirku inooga cadeynayaa in wadadeena ay dawladdu damaanad qaaday oo ay u soo tafaxayatay inay wadadeena dhisto taceerigaabana waanu taageersanahay oo contribution-keedana waanu ka qayb qaadanaynaa taayadana waanu wadaynaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in dhammaan isku socodka bulshada Soomaaliland ee gobolada ay noqdaan qaar u sahlanaada horumarka dhaqaalaha ilbaxnimada iyo waxbarashada wadada waxaas oo dhan baa soo maraya maalin walba halkaas hay'ad baa inta nagala soo hasho tiraada Burco markay marayso roob ka daayay Oodweyne halkaas aan ka noqonayna waxaan naga baaqsaday intaas oo qurbo joog gobolka soo booqan lahaayoo reer Oodweyne ayaa halka ka noqday markii meel ay soo maraan ay waayeen runtii waa faraj fiican waa nasiib wanaagsan maanta in Burco aan rajayno in bilaha soo socda ay tigta Burco ay halkan insha Allah taala ay safar ku timaado mudane wasiir waanu ka mahad celinaynaa dadaalka dheer iyo safarka dheer aad u soo gashay sidii maanta aad hawsha wadada gobolka aad uga hadli lahayd adiga iyo waftigaaguba waa ku soo dhawaadaan leenahay waxaan siin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda
ganacsiga mudane bashiir cabdixariir aad iyo aad waxaanu idinka mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee caasimadii oodweyne ee gobolka daadman inay nagu soo dhaweyseen wafdigan oo ka soo ababaxay caasimadii somalilan waxaa inoo soo diray oo aanu ka soconnay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo howlgalkaynuu soconay waxa weeyaan in lasoo indhaindheeyo oo lasoo xog waraysto waddadii qarankani dhisayey ee isku xidhaysay degmada oodweyne dhinaca burcana ku xidhaysay dhinaca hargeysana ku xidhaysay halkay marayso in lasoo xog waraysta ayaa wafdigan madaxweynuhu u soo diray wafdigana waxaa hogaaminaya sa arkaysaan wasiirka madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan xildhibaan maxamed xaaji yuusuf iyo aniguna ka koobannahay waxa wafdigu ka kooban yahay guddidii horumarinta gobolka ayaa socota injineeradii waddada xagga burca ka soo waday baa nala socda suldaankii odayaashii kale ee iyaguna hawsha qaaran ururinta waddada ka socday baa nala socda waxaynu maanta u wada soconnaa intaasoo qaybooda waddada ka wada shaqaynaysay inay oodweyne ku kulanto guddiyadii burca ka waday iyo qoladii oodweyne hawsha ka ururinaysay iyo qoladii madaxweynuhu soo diray iyo maamulkii gobolka iyo golihii deegaanka dhammaan inta laysu yimaado in laysxog waraysto maxaa inoo qabsoomay maxaan inoo qabsoomin hawl kastoo la qabtaa caqabad bay leedahay guul bay leedahay waxaa lagu guulaysan meele waxaynu isweydiinno ayuu wafdigeenna socodkeedu yahay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu idinku buurinaynaa hawshaa qaranku uu tuurta u ritay waddooyinka ah deegaan walba ciddii joogtay xil gaara iska saartay intaa xil iska saartayna waa idinku mahadnaqaynaa inta wali idinka dhimanna waxaan idinku buurinaynaa inaa hore ugu soo joogsataan oo ka hawlgashaan oo geed dheer iyo geed gaanba loo fuulo xukuumadduna kaalinteedii waa buuxinaysaa iyo mid ka badanba way ku jirtaa madaxweynaha inagu hogaaminaya wasiirka madaxtooyada madax inooga aha waddooyinka maanta la dhisaya gacanta ku haya intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa muhiima arrimaha laftoodu marka loo socdo ujeeddada wafdida had iyo jeer waxay u baahan tahay daraasad ujeeddada wafdidu markay ku saabsan tahay arrimaha horumarka iyo markay ku saabsan tahay arrimaha siyaasadda inay kala sanqadh yaraataaba fiican markay arrimaha horumarka ku saabsan tahay waxa aad iyo aad u muhiima dhowr jeer waan ku celcelinay sanqadh la'aan hadal la'aan madal la'aan in lagu soo dhaweeyo dowladuhu waxay leeyihiin siyaalo lagula hadlo oo wanaagsan ubadka oo kale aabbaha ayay dowladdu ka dhigantay qofka aabbaha u ihi caruurtiisa wuu kala waxaa laga yaabaa inuu qaar si u kala jeclaysto maqalka adaabta akhlaaqda hadduu doono cibaadada waxbarashada siyaalahaasoo kale weeye marka waxaanu rajaynaynaa in reer oodweyne aynu had iyo jeer ku dadaalno maalista ama habka loo maalo dowladda beriba cali sareere ninkii la odhan jiray maxay ahaatay dowladdii hore ka tirsanaa wasiirkii qorshayntii hore ee dowladdii udub ka mid ahaa ayaa nin kaftan badan buu ahayo markaasuu dee u darsay markuu meel walba wafti ku maray markaa gobollada somaliland buu kala qaybiyo yidhi bari iyo galbeed mas-uul reer bariyow dawarsiga barta buu odhan jiray dawarsiga wuxuu uga jeeday uun habka dowladnimada lagula hadlo habka dowladnimada lagula hadlo ee wanaagsan ayuunbuu u jeeday uun barta marka waxaa muhiima uun inaynu horta taa ka maxay tahay ka duulno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gobolka iyo dadka reer oodweyne oo dadaal badan ka sameeyey xoolo ururintii oo golaha deegaanku ka mid ahaa oo salaadiintu ka mid ahayd oo dhammaan tuulooyinka iyo gobolku aad isugu xil saareen waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa run ahaantii laysmacaasiyo golaha deegaanka iminka oodweyne uu aad iyo aad buu dadaalayaa run ahaantii taariikh wacan buu leeyahay wax badan buu qabtay runtii waxaa bilaabmay new oodweyne waxaa la yidhaaho dhaqaalaha meel la geliyaa wuxuu bedelaa istaraatiijiyadda iminka waxaan arkay intii yarayda la dhigay laamiga ee halka kilomitir wax la ahayd durba sekada ku jeeda waxaa laga yaabaa markaa inay foomku xataa isbedelo magaalada markay laamugu marto markaa waxaan odhan lahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka runtii dadaal badan sameeyey guushaa waa wada leediin run ahaantii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan uga socdaa wafdidan ujeeddadiisu waxa weeyaan ukuurgelidda iyo xaaladii waddada inaanu dhaqaajinno sidaan hore idinku sheegay dowladdu waa waalid waddooyinka oo dhan iyadaa ka mas-uula waddooyinka oo dhan dalka iyadaa ka mas-uula run ahaantii dadaal fara badan bay ka gelisay saaka waxaanu soo maray waddadii berbera oo aanu beryaha marin run ahaantii wax aad iyo aad u qiimo badan baa ka socday oo run ahaantii aad iyo aad u fiican oo wada laami ah dalka dowladdu way ka wada dhexaysaa sidaasay waddooyinka mas-uuliyad guud u wada siinaysaa waddada ceerigaabo waxaa laga yaabaa curfiga haddii aan la daweynin waddada ceerigaabo wadda reer somalilan waa wadda dheer oo dhowr boqol kilomitir ah
ujeeddada dawladdu iminka ay xoogga u saartay waxa weeye dadkeennaasi marmar bay bilaal halkaa ku dhaxaan oo bananka ku dhaxaan oo ay isku duruuf ma nihin ilaa waa inaynu isu naxariisanaa isu duruuf ma nihin waana waddo fog laakiin taa macnaheedu ma aha dawladdu waxay meesha ka saartay wixii ay oodweyne waddadeedu u qabanaysay may ka saarin way sii labanlaabtay taan u soconaana waa taa fariinta aanu idiin sidnaa waxa weeye waddadii oodweyne إلا والله قش قيا واحد هذا الكصوب حي واحد صوب حي درين كصوب حا وحنوسع نوع وجدي نوع عقفين كوريج نهال كعفر عقف سند عصب عمر كاد عيو كالوريجا ميزانية دي هروي دمانيان 2014 بالجلية وحيم كلا دقاتشينيا وددي أودوينه يد ما ودوي كوي حلوه هيبة أي أيمك هوش ودي الجلية ولا حوتشينيا صابت هنوسع أنا وقتها هرت الدولة دي مي إلا وير أودوينه وداد مريرو مي إلا وين وددي أودوينه ويسيل بالعطو أنا أحل بانو ميزانية دي أوجي تاهرت بالغشاء كتر صدا إذن كنا وحاسين بالعطان دالكي أو وجرتين maxay ahayd toy contribution kii qaybtiina kaga qaadan lahaydeen waxaan halkan uga mahadnaqayaa odayaashii salaadintii uqaas jooga oo runtii xoolo badan soo ururiyay marka wuxuunaan u soconay waxaan rasuulillah waxaan filayaa mas'uuliyiintii ugu horeysay baa sheegay socdaalkii wuxuu ahaa in wadadii xaaladeedii uu ku urgalo sidoo kalena dardar gelino sidii wadada uu sii soconayd hawsheedu wadadoodu weyne maaha markii koobaad aynu isugu nimaadno waxaan marar badan ku kulannay sidii waxa weeye wadadan loo dhameystiri lahaa hawsheeda loo geli lahaa madaxweynaha Soomaaliland baa dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland contribution markii horena uu ka geystay wixii ay ula yimaadeen guddigu markii dambana waxa weeye anagu nagu amray waana siyaasadiisii taanu wadnaa in qalab loo iibiyay in qorshaheedii la galay in laga shaqeeyo si loo dhameystiri lahaaba dawladdu mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha inta contribution naga aanu gaadhsiinay waxaanu leenahay reeroodu inuu idinka la idinka baahan yahay contribution kiini halka aynu maalintii ku kala tagnay 10 kun oo neef baynu ku kala tagnay 10 kun neef baan maanta dee u soconaa socodkiisii waxa la hayo iyo waxa idin qabsoomay anagu dawlad ahaan diyaar baan leenahay kaayagi waa dhigaynaa miiskaanu dhigaynaa kiini hal idinka helo dawladana siyaasadeedu waxay tahay dawladana siyaasadeedu waxay tahay cid kastoo wax qabsata waxbay la qabanaysaa waxaana ugu kala burinaysaa sida wax u kala qabsadaan haddaad waxba qabsan weydo oo adigu taadii soo furi weydo oo contribution-kaaga barbarkaaga ka bixin weydo oo dacalkaaga qaban weydo haddii dawladdu kaa daahdo cidna canaan ha saarin adigu is canaano waxa weeyaan dawladdu diyaar bay u tahay horena kharashkii waanu bixinay qalabkii waanu bixinay imkana diyaar baanu nahay waxa loo baahan yahay horta ka horeeya reerooyin waxbaynu ku kala tagnay de horta in xisaabta siiya haddaynu nabad qabno soo dhiga miiska waxa samaysay shaqo wixii qabsoontay baynu eegi wixii inoo socday baynu eegi wixii dawladdu laga soo gaaray baynu dawladdu kharashka u badan wadada la geliyada qabtay bixisay kharashka u badan ninka ugu beeninaya yimaado kharashka u badan maxamed aad dhirwaakan macid baan naga kharash baday wixii la bixiyay dawladda ugu badan 7% qalabkii hadday tahay tii wadada gashayba waynu wada fadhiisan doonaa insha Allah taala waynu isla eegi imikana waxaynu qorsheynaynaa halkaynu uga dhaqaaqnaa halka yeesaynu sii wadnaa waxaana loo baahan yahay la isku duuban yahay oo la iskaashanayo oo qof aanu canaanano qof tiirinayo in hawsha wada qabano oo aynu isku canaanano wixii inaga daahay inaga dhinmay laakiin si aynaan waxba tuhumo iyo wada heblaaya la dhisay wada heblaaya maxaa loo dhisi waayay waxaas wax taraya maaha waxa looga baahan yahay maanta wadada oodweyne qof waliba wuxuu tari lahaa qof waliba wuxuu gashan lahaa ayaa looga baahan yahay aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh